maanta muslimiintu waxay sugayaan inuu qof inta u soo baxo kaligiis ah uu ka dhax saaro dhibaatooyinka iyo mashaakisha iyo wacyi-liidanida ay ku jiraan. dadka qaar waxay sugayaan inay mucjiso inta dhacdo noloshooda hal mar ay si wanaagsan u bedesho. gabdhaha qaarna waxay had iyo goraale ku taamaan inuu u soo baxo ama ay helaan wiilkii qurxoonaa ee wanaagsanaa hantiilaha ahaa ee nolosha sida jacaylka uu ka buuxo ula wadaagi lahaa, isla markaana dhibaatooyin fara badan oo noloshooda ay leedahay hadda ka saari lahaa. arrimahaas waxa ka suurtagalsan iyo sida xalku yahay ayaan waxaan uga hadli doonaa kulankeena maanta oo kelmadiisu tahay noloshu waa doorasho. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qaab fakarka ah ee xal degdega ayaa jira, cid banaanka iga imaanaysa oo iga saaraysa dhibaatadan ayaa heli doonaa, mucjisa dhici doonta oo hal mar xaaladii adkeed looga bixi doono. waxyaabahaas oo dhan ama qaab fakarka noocaasi wuxuu ku salaysan yahay wax la yiraahdo xanuun baabi'in. hadda maalan haddii madaxu xanuuno ama qandho ay qabato oo aan ku ordo xanuun baabi'iye oo aan laqo mid iyo labo, waxaa laga yaabaa in xanuunkii ama qandhadii si ku meel gaar iga baaba'do, laakiin lagama yaabo in hal mar uu daaweeyo xanuunkan aan dareemay. waxa weeyaan waa carad, waa wax iga soo muuqday weeye. طيب waxaas waxay leeyihiin xididay leeyihiin hoose. xididka hoose haddaanan daaweynin oonan dhakhtar tagin macna ma samaynayso inaa maanta oo dhan xanuun baabi'iyo uun qaata kaliya, soo ma? saas si la mida marka aad macnaha hididilada noocaas ku jirto qof khatara imaan doona, noloshu saanay noqon doontaa oo wax talaaba aad qaadaynin, oodan ogeyn nolosha inay khiyaaraad tahay, oo aadan aaminsanayn in noloshu doorasho tahay, oo adigu aad tahay qofka dooranaya, oo adigu aad tahay qofka mas'uulka ka ah. waxaad weligaa ku jiraysaa in aad sidaadii hore un ku laabato. noloshu waa doorashooyin. qofka dooranaya waa adiga, qofka ka noqonaya mas'uulka waa adiga, qofka darawalkeeda noqonaya waa adiga. adigaa degsanaya qorshihii noloshaada ku socon lahayd, adigaa ka shaqaynaya sida aad farxad ku heli lahayd, adigaa ka shaqaynaya sida aad wacyigaaga u ziyaadin lahayd, una horumarin lahayd naftaada, adigaa ka shaqaynaya sida xiriiro wanaagsan u samaysan lahayd, adigaa ka shaqaynaya si dadka ugu hareeraysan aad saameyn wanaagsan uga tagi lahayd. kulli waa wax khiyaaraad adiga kugu saabsan weeyaan. noloshu marka waa doorashadaas aan idiin sheegay oo su'aalo ayaad ka jawaabaysaa. su'aalo ayaad ka jawaabaysaa oo doorasho leh. su'aalaha soo ma taqaaniin nooca doorashada leh oo A iyo B oo kala tala ama C dhowrka qodob leh la kala dooranayo. sidaas oo kale weeyaan. guul miyaad rabtaa mise guul daraad rabtaa? farxad miyaad rabtaa mise waxaad rabtaa murugo? ma waxaad rabtaa jacayl mise waxaad rabtaa cabsi? adaa kala dooranaya. ma haddaad guursanaysaa mise 10 sano kadib aad guursanaysaa? haddaad guursatay ma sanadka ugu horeeya ilmo dhalaysaa mise 10 sano kadib aad dhalaysaa? adigaa dooranaya. cid kale oo shaqo ku leh ama kugula dhigi kartaa hoggaanka ama kuu tilmaami kartaana ma lahan, inaad adigu ogolaato maahane. marka saas u og tahay noloshu inay doorashada saasa tahay oo adiga aad mas'uuliyadeeda leedahay, ma dareemi kartaa intee in la egaad raaxad dareemaysaa ay kula qurxoon tahay. laakiin dad fara badan sidaa ma rabaan ogow. waxay rabaan kaliya inay jiraan oo ay cayaaraan dowrka dhibanaha, dowrka lagu sameeyaha, oo ay maantoo dhan ka sheekeeyaan saanaa lii yeelay, weligaysaan liima samaynin, weligaysaan liima yeelin, maalinka saanaa liigu sameeyaa. kama fakarayo maxaan aniga samayn karaa, maxaa aniga ila gudboon, maxaanse aniga tallaabo ah oon qaadi karaa, uga bixi karaa. ogow marka aad mafcuulun bihi tahay oo lagu sameeye aad tahay nolosha, oo sidii la raba lagaa yeelayo, adiga u sii daayay maxaa la yiraahdaa hoggaankii iyo xakamihii noloshaada dadka kale adaa u sii daayay. adigaa shakhsiyadaada daciif ka dhigay iyo qof aan go'aan qaadan karin, qof aan waxba fahamsanayn, qof aan naftiisa sidii uu raba ka yeeli karin. soo dadka qaar marka noloshaada ay faragelin ku sameynayaan ayaga oo xujo ka dhiganaya, waa caawinaynaa, qofkan waxba ma qabsan karo, qofkan waa ka taallaa, homeworkaan uga shaqaynaynaa. ogow homeworkaa qofna kaagama, adaa laga rabaa inaad homeworkaa ka shaqaysato. noloshu waa dheer tahay, waa wadooyin badan tahay, waa qaabab maaragtay kala duwan tahay. qofka la rabo marka in rixladaas iyo safarkaas dheer ee nolosha
uu ku raaxaysto oo uu dhaho anaa mas'uul ka ah noloshayda anaa iskale doorashada midkan buluuga ahaan dooranayaa ee ma raba kan guduudka cadaankan qaadanayaa oo madowgan ka tagaya qofka dhahaya waa adiga qofka dhahaya naftayda anaa mas'uul ka ah anaa ilaalinaya anaa maaragtay dhaqaaleynaya waa adiga hadaad marka sugayso inay cid kale ku dhaqaaleyso ama مثلا aad sugayso wallahi marka aan guursado amaarta raaxa u bixi doona gabar fiican oo wanaagsan oo wax kastoon khaldo iga daba qaada iga daba raga qaar saas u fikraan moogta يعني wuxuu asaga cashwaay oo isku dhaxyaacsan macwiistu halkan ku siibaya oo ka dhaxbaxaya macwiista shanta laabo qaadaya xaq fanaanada ku tuuraya ila aakhir markuu wuxuu ku fakarayaa markuu guursado inuu heli doono gabar macwiis soo qaada katabaanka u saarta maaragtay wax hadaadan adiga hadda isu sameeynin ma helaysid gabadha noocaas sidoo kale gabadha iyadana ku fakarayso wallahi markaan helo wiilkii jaceylkii noloshayda ahaa ayaan maaragtay lacag heli doonaa meeshaan raba aadi doonaa baashaali doonaa raaxaysan doonaa raaxada waxba dib dhigin hadda raaxayso intaad awoodid macnaha iyo inta ku suurtagalsan marka khiyaarka adiga iskala doorashada nolosha adiga ayaa iskala dadka qaar waxay sameeyaan marka maadaama aysan aqoon doorashada inay leeyihiin waxay sameynayaan doorka wuxuu ciyaarayaa saan soo sheegnay dhibanaha dadka marka maanta oo dhan doorka dhibanaha ciyaaraya waxa arkaysaa xataa marka isu yimaadaan dhibaato iyo waxay ka sheekeynayaan mashaakil haysata markaas waxay ku tartamayaan in midba midka kale uu u soo bandhigay dhibaatadiisa ka xooganta ninkan wuxuu soo bandhigaya dhibaatadiisa ama gabadhan wuxuu soo bandhigay gabadha kale dhibaatadeeda si ay u sugto ama ay u cadeyso in anaa ka dhib badan أنا كان رفاض بدن أنا nolosha يعني كاga cadaab badan marka qaabkaas marka u fakaraysid oo aad ciyaarayso doorkaas dhibanaha aad jilayso doorkaas aad ka jilayso riwaayada nolosha maad ku fakartid inaad adigu noqotid sameeye oo dib u sameeyso noloshaada dib u qortid qisadaada qaadatid doorashada noloshaada ugu dambeyn waxaan leenahay ogsoonow waa noloshaada adiga qof kale noloshiisa ma aha عدة نولاني سانا وأذية عد كلا كوما نولاني سو سادراديد وحاد ترى هذا أنيقا مسؤول كأه نولا شيدا أنيقا له دورة شدا نولا شيدا هل كاس كبلا ورحلة وناكسن حكمها كوسو عرينيسا وواحد أقعتا واحد تهي سميها نولا شادا حداد دورته haddaad sadooran weyso waxaad noqonaysaa lagu sameeyaa hadba halkii doona loo dhigo mahadsanid